ilaahay waa samiic, waxa aad ku hadlayso oo dhan ayuu maqlaa, waxa calooshaada ka dhex hadlaya oo dhan ayuu maqlaa. Gooryaanka xitaa markuu kugu kaco ilaahay subxaanahu wa tacaala dhawaqiisu waa maqlaa markay calooshaada qulululub wax ka leeyihiin. Ramadaan wanaagsan, Ramadaan wanaagsan, Ramadaan salaamullaahi calaykum asxaabta qaaliga, soo dhawaada mar kale. Waad inii soo dhaweynayaa, waxaan rajeynayaa inaad fiican tihiin. Ramadaan mubaarak. Waxaan halkan kasii ambaqaadaynaa ama hore kasii wadaynaa cashirkeennii ku saabsanay asmaada ilaahay. Baro oo ku duceyso adigoo macnahooda iyo laftigeedaba yaqaana. Ismiga 19aad ee Al-Caliim ayaan maraynay. Waxaan kusii daraynaa ismada kale ee kusii xiga. Isimka 20aad waxa weeye Al-Qaabidlo. Qaabid macnihiisu waxa weeye ismigaas oo magac ilaahayga ah. Macnihiisu waxa weeye ilaahay cidhiidhiye inuu yahay. Cidda wax cidhiidhin kartaa inay tahay ilaahay oo keliya. Ilaahay ayaa cidhiidhiye ah, cid kale oo wax cidhiidhin kartaa ma jiro. Haddii risaq tahay iyo haddii arrin kale tahaba ilaahay ayaa isaga cidhiidhiye ah. Haddana isimka labaad kusii xigo waxaan ku arkaynaa xigmad darteed Al-Baasidu ilaahay inuu yahay isagu waasiciye, fududeeye. Ilaahay inuu yahay wax cidda wax waasicisa inuu ilaahay yahay. Isagaana cidhiidhiye ah, isagaana baasidu ah ee fududeeye ah ama waasiciye ah. Isimka labaad Al-Qaafidlu. Isimka kale Al-Qaafidlu waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala hoos u dhigay. Isaga ayaa ilaahay hoos u dhiga. Cidduu doono isaga ayaa hoos u dhiga xigmad darteed. Ar-Raafic ilaahay isagana sare maraya. Cidduu doono isagaa sarreysiiya oo kor u dhiga. Cidda uu doono ilaahay isagaa kor u dhiga. Cidda uu doono ilaahay isagaa sarreysiiya. Ar-Raaficu waa sarreysiiye. Ilaahay subxaanahu wa tacaala Al-Mucizu waa karaameeye, waa sharfe. Waa sharfe. Cidda uu doono ayuu ilaahay wuxuu siiyaa cisi iyo sharaf ayuu gaarsiiyaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala sidoo kale Al-Mudillu isimka ah. Macnihiisu waxa weeye ilaahay inuu hoos u dhiga uu yahay. Ciddii uu doono ayuu ilaahay hoos u dhigaa xigmad darteed. Ilaahay baa garanaya. Kuwa ilaahay isku dayay inay ilaahay awoodiisa isku dayaan inay wax ka sheegaan ama inay isku taagaan shariik darteed ilaahay isugu dayay, ilaahay isaga ayaa hoos u dhiga. Ilaahay waxa weeye hoos u dhiga, duleeye. Ilaahay isaga duleeye. Ilaahay As-Samiic waa maqle. Waxa uurkaaga ku jira ama waxa calooshaada ka dhex dhawaaqaya ayaa ilaahay maqlaa. Quraanka in badan baa loo sheegay Samiic. Ilaahay subxaanahu wax yarad maqashaa. Waxa meelaha agaarkaaga ka hadlaya iyo waxa wax meelaha ka dhageysatay intaasad maqashaa. Laakiin ma maqli kartid qof kale uurkiisa waxa ku jira ma maqli kartid. Laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi iyo ogaal wuxuu leeyahay oo ku maqlo wax kasta oo koonkan ka jira. Ilaahay subxaanahu wa tacaala Al-Basiir waa arke. Dhiigaaga qulqulaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu arkaa. Dhiigaaga soconaya ayay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu arkaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xakam. Ilaahay ayaa wax kala xukmiyo. Xukunka ugu dambeeya ee wax lagu kala xukmiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iskale. Maalinta qiyaamo markii la gaaro ilaahay ayaa ummadiisa kala xukumaya. Quraanjada aad ku istaagtay adiga ilaahay ayaa kala xukumaya. Marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xaakim. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa xaakim ah. Ilaahay subxaanahu wa tacaala Al-Cadlu waa cadaalad. Bini aadamku intaan qaado iga wareeji saan ii sameey dadku way yaqaanaa, laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala caadil weeye. Quraanjada yarta ee masaakiinta iyo adigaas markaad u jeed laga yaabo marka dhulka maray aadanaba u jeedin markaad isqabsatiin ilaahay si cadaalada ayuu arrintiin in kala fulinayaa. Waa yartahay, waa weyn tahay, midna ilaahay u fiirin maayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala latiif wey, latiif dhimriye. ilaahay subxaanahu wa tacaala
waa dhimriye. adduunka cidda ugu naxariista badan waa hooyo. bini'aadamka hadday tahay hooyada ugu naxariis badan, xayawaanaadka hadday tahay hooyada ugu naxariis badan, wax waliba waxa ugu naxariis badan waa hooyada. ilaahay subxaanahu sida hooyada ay u dhimrido kale, hooyadu waxaa la yidhi hasha geela ayaa la geela, marka waxaa la yidhi ilmigeeda haddii lugta saa u saartaa la yidhi waa kala boodaa. sababta ugala boodeen way u naxaysaa, dhimrin ay u dhimrinayso. ilaahay subxaanahu saas addoommadiisa ugu dhimriyaa. ilaahay subxaanahu watacaala waa latiif. cashirkeena waxaan kusoo koobaynaa maanta latiif ayaan kusoo koobaynaa insha allahu tacaala. waxaan leeyahay dhammaantiin waa mahadsantihiin. haddii fiidiyowgu kusoo gaaro walaalahaada kale la sii wadaag. daawashadana waan kaaga mahadcelinayaa, waanaad ku mahadsan tahay. waxaan kuu rajaynayaa inaad ismaada ilaahay aad ku bariso adigoo macnahooda yaqaana, adigoo ku dadaburaya, adiga oo yaqiinsan macnaha ay u taagan yihiin. xaajiyooyinkada kala duwanna aad ilaahay kula bariso. waxaan leeyahay dhammaantiin waad mahadsantihiin meel walbood joogtiin. ramadaan mubaarak.